بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام كبعدي maamulayaasha halkan fadhiya oo isku jira kuwii dugsiyada hoose dhexe ama primary schools iyo kuwii secondaryyaasha oo ah maamulayaasha dugsiyadooda sanadkani ay ka qalin jabinayaan fasalka 8aad ee imtixaanka u diyaar garoobayaan iyo form 4ka iskuulada la weeyaan iskuuladii oo dhan maaha waxaan halkan u yimaadeen sidii looga wada hadli lahaa u diyaar garowga imtixaanka soo socda oo diyaar garowgaasina waxa weeyaan documentiskii iyo aqoonsiyadii iyo sawirradii wixii ardayda looga baahnaa in la sii diyaariyo oo kolka la habeeyo loo diro xafiiska imtixaanada hawshaas oo hawl facweyna oo haddii marka la isku sii dubaridi waayo horana xafiiska imtixaanada loogu diri waayo laga yaabo inay maaragtay jiitan iyo keento maaragtay dib u dhac hadduu documentiska iyo xamaanta imika la diray hadday dib u dhacdo waxay keenaysaa imtixaankii shahaadadu hadhow inuu dib u dhaco oo maaragtay la isla wada habsaamo oo ardaygii galayay formanka kii kale maaragtay jaamacadda galayay wixii oo dhan baa ku xidhan sidaa darteed wafdi uu hogaaminayo gudoomiye ku-xigeenka maaragtay xafiiska imtixaanada iyo wakiilka qorsheynta xafiiska imtixaanada ayaa halkan nala fadhiya oo hawshaasi u yimiday iminkana waxaan ku soo dhaweynayaa si uu maaragtay waxa loo baahan yahay inuu faahfaahiyo iyo waxa la inaga rabo muddada kooban ay halkan joogaan way nala shaqeynayaan dugsiyada haddii loo baahdo way tagi doonaan iminkana si uu inoogu sheego inoogu faahfaahiyo maamulayaasha haddaad tihiin waxa la inaga rabo waxaan ku soo dhaweynayaa gudoomiye ku-xigeenka xafiiska imtixaanada Mr. Xasan Qalinle. بسم الله الرحمن الرحيم. ساو أريوغي نو شيء لغة شربة مصمتكي يا حفظ امتحانات في قرن كوكرة دراء شقاليسة مر وطنو إما كانوا صبحنا يوكله أو أرضك دكمنت كيسة إن وحي أقبه لقى ربو أرضك لقى سوقاضو تبتمن الحرايو لو ديار جروج امتحاناتك مركا لوجلي iyo waqti aanu ardayga kala hadalno wixii talooyinay nasiinano imtixaanaadka aanu ka siinano kala hadalno kan waa kii maamulka marka waxa weeyaan ahamiyadiisu in la ogaado tiro koobta ardayda imtixaanaadka u diyaar garoobaya ee fasalada afraad ee dugsiyada sare iyo kuwa 8aad ee dugsiyada dhexe ardayda tiradaasi oo loogu qorsheyn doono imtixaanka soo socda tirkoobtaasi waa mid weey ta kale in ardayga laga qaado sawirkiisa magaciisa magaca hooyo halkuu ku dhashay yani taxanihiisa raaciisa in la xareeyo oo dabeetana loo geliyo computerka tiyoosaa loo hayo xogtiisa imtixaanka la soo diro kaarkiisana loo soo sameeyo in la hubiyo ardaydu kuwa magacyo la baxaa matala hooyadu ama bixinaysa aabihina magac u bixinaya kolba ku doono qoranaya in waxa la isla og yahay oo gobolka iyo xafiisku isla jaangooyeen sida loo habeeyo loo xareeyo waqtigeedina lagu diyaar garoobo ayna taahin si aariyoogu sheegay waayo way badan tahay marka sanadahan dambe ardayda imtixaanaadka u fadhiisanaysa tiradoodu waa aad u badan tahay marka u diyaar garoow wanaagsan in la sameeyo ayaanu maamulayaasha ku wargelinayna inay arrinka ay soo gudbiyaan